sida ay xaqiijiyeen ciidamada ilaalada badda Liibiya waxaa geeriyooday 150 qof oo tahriibiyaal ah kuwaasi oo ku safrayay dooni ka samaysan balastiko xilli ay marayeen badweynta oo qiyaastii 100 kiiloomitir u jirta xeebta Liibiya. doontan ayaa ku kacay shore kadib markii ay isgaareen biyaha badda iyo qaybta dabka ee matoorka, taasina waxay sababtay in doontu ay degto iyadoona aysan helin wax gurmad ah dadkii saarnaa doontani tahriibta oo ay badankood ahaayeen Soomaali. ciidamada ilaalada badda Liibiya ayaa ka helay badweynta qaar ka mid ah meedadka dadka geeriyooday, waxaana ay sheegeen in maalmihii ugu dambeeyay uu jawigu badda uu aad u kacsanaa, sidaa darteed ay aad u adkayd inay ku safraan doonyaha yaryar ee tahriibta. qaar ka mid ah dhalinyarada dhawaan safarka tahriibta ku soo gaaray Maalta oo la hadlayay TV-ga Universal ayaa ka warbixiyay xaaladaha adag ee safarka tahriibta xilligan, iyagoona u digay dhalinyarada Soomaaliyeed ee kale ee damacsan in ay naftooda ku soo halaagaan safarka tahriibta. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Axmed Cumar Cagalaab, waxaan ku noolahay Maalta, waxaan soo galay Mardhow. waxaan aad uga tiiraanyeysanahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaaraysa 150 oo xalay mahan habeen hore ku dhimatay badda u dhaxaysa Liibiya iyo Talyaaniga. marka aad ay waxaan ugu xumahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee nafsadooda ku soo haligaya halkan. annaga ayaa sidoo kale ku soo halignay, laakiin annaga ha naga qaateen message aan u dirayno, waayo meeshan hamigeennii iyo wixii aan u soo socnay ma yaalaan. dhibaato culus ah taala, daryeel ma haystaan, wax ma haystaan. dib badan baan soo marnay. saxaraha waxa weeye waxaan ognahay dad badan ayaa nooga dhintay oo aan jecelnahay oo saaxiibaday ahaa. rafaad oon iyo gaajo iyo baahi bay u dhinteen. Liibiya sidoo kale xabsiyada waxaa ka buuxa Soomaali fara badan, cid u maqana ma lahan. qaar si loo garaacayo loo dilaayay wixii waayeen xibnahooda qaar ka mid ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Cabdishakuur Jaamac, waxaan ka mid ahay dhalinyarada dhawaan soo gashay waddanka Maalto. waxaan soo maray saxarihii, dhibaato aad iyo aad u fara badan baa naga qabsatay, dhalinyaro badan baa nooga dhintay. waxaan soo maray xabsiyo Liibiya ah, aad iyo aad baa ugu xirnaa in dooraa ku xirnaa. dhalinyaro badan baa ayagana nooga dhintay, jirdil badan baana loo ku geystay, dhibaatooyin aad iyo aad fara badan baana loo ku geystay. waxaan soo maray xeebtii baddii baan soo maray, ayadana dad baa nooga dhintay, dhibaato aad iyo aad u fara badan baa naga soo martay. aad iyo aad baa uga naxay markii aan maqlay 150 qof baa ku dhimatay baddii. walaalayaalow, 3 wiil oo walaalahaya haddana ku saaxiibada ayaa ku jiray oo walaalo Soomaaliyeed ah. dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad baa ugu tacsiinaya. walaalayaalow, meesha ha isku soo biimaynina, baddan waa tahluuko, wax naftaada lagu soo aamino ma ahan, wax lagu kalsoonaado ma ahan, waa biyo. dhanka kale ciidamada badda Talyaaniga ayaa badbaadiyay 53 qof oo tahriibiyaal ah oo la socday dooni yar oo kuwa la ariyay oo tube ka samaysan, waxaana la geeyay dadkaasi jasiiradda Seychelles. sanadihii ugu dambeeyay Talyaaniga waxaa gaaray muhaajiriin dhan 85,000 oo qof, halka sanadkii tagay ee 2013 oo kaliya tirada dadka tahriibta ku galay Talyaanigu ay kor u dhaafayaan 20,000 oo qof. qiimeyn ay samaysay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR waxay ku sheegtay in badda Mediterranean-ka ay ku dhinteen 500 oo qof muhaajiriin ah 6 bilood ee la soo dhaafay. Axmed Nuur Ibraahim, Universal TV, Malta.